ودقمة كمية دقموي كلاقات صالة قاطو تاريخ دا قبل كبنادر يجود هان بالصوماليا حمر جاب كور حرية دي وحي هان جرتي هالكا وكلها حرمها أقوى وين قمسي دالك الصومري ciidamada xoogga dalka muhiimad gaar ah u lahayd degmada Xamar Jajab waxaana deganaa ciidamada cirka dhulka iyo kuwa badda ee xerada Marino iyadoo degmada ay ku taala dekada Muqdisho taasoo halka ugu badan ee Soomaaliya ka soo gala dakhligu Xamar Jajabna waxa ku wali jiray kuleejooyinkii orfane kuleeja Ferrara oo ahayd tii booliiska iyo kuleeja magistrale oo ahayd midda macallimiinta waana halka degmo oo leh saldhigyada booliiska ugu badan marka loo eego kuwa kale waa degmada xiriirka bulshada ee akademiga la leedahay ay ka tirsan tahay degmada Xamar Jajab waxa ku yaala saldhigyo badan oo ciidan baa ku yiilay afisyoon aan ka soo bilaabo akademiga School of Police Fiame Birmadka laanta ilaalinta cashuuraha waxaasoo dhan waxay ahaayeen xarumaha ciidamada qalabka sida noocyada duwan kala ahaadana degmadan Xamar Jajab ayaa nasiib u yeelatay waayo meesha aqoonta ciidanka iyo diyaar garowdiisa magaalada Muqdisho meelahay ka soo bixi jireen ayuu ka mid noqday iskuulkan ee xaafadda Xamar Jajab xilliyadii qallaasaha iyo nabad darradu ka jirtay Soomaaliya Xamar Jajab waxay ka mid noqotay degmooyinkii ka badbaaday dhibaatadii xoogganeed ee dalka ka dhacay si dulsaar ahaan waxa uu soo duldegay dadkii ka soo qaxay degmooyinka kale ee gobolka Banaadir oo ay dagaaladu saameeyeen degmada Xamar Jajab horta taariikhiyan waa degmooyinka waxay ka mid tahay gobolka Banaadir degmooyinka ugu qadiimsan waa degmooyin dadka degan ay isku xiran yihiin haddii aan soo qaato oo waxaan ku dhihi karaa wax la taaban kara waxa kamid ah degmooyinka kale ugu duwan yihiin dagaaladii sokeeye ee dalkan soo maray waa degmada aan dhihi kara kaliya aysan saameynta ku yeelan maxaa yeelay dadkii degnaa oo kala nooc ahaa oo qaarkood ay dagaaladii ku baxeen qaarkood ay dagaaladii kadib ay soo galeen waa dad isla wada nool waa dad dareensan in ay yihiin hal qowmiyad oo kale ama hal team oo kale arintaas waxay sababtay marka dadkoodii isku xirnaashahoodii inay dad walba oo dhinac walba bulshada dhinac qaybaheeda kala duwan inay ku wada noolaadaan si nabad ay ku noolaadaan si dirisnimo ay ku noolaadaan is aaminaan isla joogaan wax aad problema ayagoon isku qabin inay isjeclaadaan maamulka cusub oo maamulkan hadda aniga madaxda ka ahane waxay u sahashay in isdhexgalkii bulshada maadaama dadkii ay yihiin dad isku xiran oo isjecel in annagana ay noo sahlanaato dacwooyinka qaasatan oo dhibkii iyo dagaalkii buuqa iyo fowdada inay naga yar yihiin oo wax problema weyn hadda aan ku qaban oo kaliya waxa aan ka hadalna ay yihiin dadka degan Xamar Jajab sida ay ku sameey lahaayeen horumarkoodii annagana aan ugu tiirsanaa lahayn waxbarashadoodii iyo caafimaadkoodii iyo nadaafadoodii aan isku kaashalayn marka taas ayaan dhihi karaa in ay tahay waxyaabaha aan ugu duwanahay degmooyinka kale ee gobolka Banaadir xerada Afisyooni waxay ahayd halka xudunta u ahayd kulamadii ay sameyn jireen saraakiishii sameeyay afgambigii loo bixiyay inqilaabkii aan dhiigu ku daadan ee dhacay Oktoobar 21 1969 saraakiishaasi sameeyay afgambigaasna guushoodii kadib Afisyooni ayaa u noqotay madaxtooyadii ku meel gaarka ah ay ku shaqo bilaabeen madaxtooyaha markuu kacaanka dhashay ilaa saraakiisha kacaanka sameeyay waxay hayaan saraakiisha halka joogo marka madaxtooye ma ahana guriyihii saraakiisha qaarkood ayaa xafiisyo madaxweynaha looga dhigay marka saddex sargaal oo markaas midna safiir laga dhigay midna la xiray midna la bedelo guri kale la siiyay saddexdii guriyay deganaayeen ayaa madaxtooye laga dhigay marka meesha 6 guriya ku taala saddexna saraakiisha deganeed saddexna madaxtooye laga dhigay marka Allahu naxariistay Maxamed Siyaab asaa taliyaha ahay asaa kacaanka madaxu ka ahaa marka meeshaas uu degay ma xaasi uma degin laakiin asaga shakhsiyan iyo xafiiskiisa ayaa meeshaas ay guriyahaas la waa dadka degan degmada Xamar Jajab noloshoodu waa kuwa ay ku tiirsan tahay xamaalka iyo ganacsiga iyadoona kaabayaasha dhaqaale iyo wadooyinkuba yihiin kuwa helay dayactir buuxda degmadana waxaa ku taala xeebta Mayamoto oo ah mid ugu wanaagsan xilliyada hawo bedelashada iyo qaadashada hawada macaan waxayna Xamar Jajab soodima la wadaagtaa degmooyinka gobolka Banaadir qaarkood Xamar Jajab waxay idris la tahay dhowr degmo oo ay ka mid tahay degmada Xamarweyne oo ka xigta dhinaca bari degmada waa beri oo ka xigto dhinaca waqooyi iyo dhinaca galbeed oo dhihi karno waxaan iyadana xad ka leenahay degmada Wadajir
koonfurna waxaan leenahay badweyntan Hindiya. degmada Xamar Jajab waxay kooban tahay 4 waaxood oo kala ah waaxda koowaad ee Gaheer, waaxda labaad ee Horseed, waaxda saddexaad oo ah Kowda May iyo waaxda afraad oo ah General Daawud. waxbarashada degmadan iyo caafimaadkuba waa kuwa sameynaya kobac waxaana ku yaala isbitaalaha tan shaqeeya sida Martini, Yardamile iyo UNICEF. sidoo kalena xilligan waxa MCA-jada degmada ku yaala ay bixiyaan talaalka carruurta iyo gargaarka degdega ah oo hooyada iyo dhallaankuba u baahan yihiin. ilmaha markaan u soo gudbo under 5ka daawo ayaa la siiyaa meeshaan ugu yaraan 200 oo qof subaxii waa lagu qaabilaa oo nooga yimaada xataa carro kale degmadeena iyo degmooyin kale xataa sida Xamar Weyne si maxaan ku leeyahay ii sheeg maxaa ahay Waaberi haddii ila kuwa dariska amaana kuwa wallahi ka shisheeya ayaa jiraan oo noo imaadaan sababtoo meeshaana meel aad iyo aad runtii is amaani mayno ummadaha kale amaanaana jiro saarama dadka u soo dhaweeyno ama wixii Ilaahay noo dhiiba aan ku siino waxaan kala qabanaa ilmaha yaryarka oo maxaa ahay nutritionka waxaa la siiyaa geedkii maxaa ahay baladmed la siiyaa ayagana waa meeshaas hawshaas kala shaqadaasna waa qabanaa farmashiyo waa leenahay oo daawada lagu qaabilo waxaan leenahay kale hadii Ilaahay ku rooyahay OPD meesha qaybta dadka waaweyn intaas oo dhan hawlaha soo qabtaa dadka degmada Xamar Jajab yaal waa 3 iskool geer iskool khasabka dadka waaweyn iskoolka Xamar Jajab 3daas oo ku yaalaan 3daas waa 3 iskool oo aad loogu dadaalo oo wax lagu barto dhinaca nadaafadiisii degmadana aad bay ugu dadaashaa shacabkana gacan weyn bay ku siiyaan marka waa mid aad loogu farxo degmadii iyo iskoolaadkii dhibaato kuma qabno aad aan ugu faraxsanahay haddana nahay Xamar Jajab. xerada tababarka ciidamada ee General Kahiye waxaa ku xareysan ciidamo badan oo loo carbinayo inay ka mid noqdaan booliiska Soomaaliyeed. xeradana waxay ciidamada u tahay halkay ku qaataan tababarada ciidan waana u hoy inta ay qaadanayaan tababarada waxaana jira marxalado kala duwan oo ay soo martay xeradan inta ay dhisneed. iskool booliisiyo waxay noqotay xarumaha lagu tababaro ciidanka booliiska gaar ahaaneed noocyada kala duwan oo xirfadda booliiska iyo koorsiyada iyo dalacaada ciidanka dhexdiisa lagu sameeyo meheradiisana lagu bartaa xilliga dawladda dhexe ee kacaanka magacii iskool booliisiyo waa laga bedelay waxa loo bedelay magaca la yiraahdo dugsiga sare ee ciidanka booliiska muddo yarna ka bacdi waxa loo baxshay akademiga booliiska Soomaaliya ee ciidanka booliiska muddadii dambana waxaa dhacday in loogu magac daraa in la yiraahdo General Kahiye akademiga General Kahiye Police ayaa lagu daray Allahu naxariisna waxa lagu magacaabay General Kahiye oo akademiga booliiska aynu fadhino maanta hawsha ugu weyn halkan ka socoto oo wax lagu qabtaan waxa weeye meherada ciidanka aqoontiisa xirfadeed noocyada kala duwan oo ciidanka booliisku ka koobaya baaris haday noqoto canshuur haday noqoto dabagal haday noqoto discipline haday noqoto meherooyinka baarista CID-da noocyo kala duwan ayaa lagu qaataa halkan oo joogto meherada booliiska dhalinyarada ku nool Xamar Jajab wiilal iyo gabdhaba mashquulka ugu badan ay ku jiraan waa nooleynta fanka degmada iyo sidoo kale ciyaaraha kala duwan sida basketballka iyo kubadda cagta iyagoo saacidaad ka hela degmada. dekada Muqdisho waxa ka socdo shaqooyinkeeda maalinlaha ah dad badan ayaa u soo shaqo taga in nolomaameedkooda caadiga ay ka soo dhacsadaan dekada waxaad arkaysaan maraakiib ku xiran dekada oo sida shixnado konteenaro la saaraya baawur iyo waxyaabo kale ee badan ayaa ka socda dekada Maxamed Ciise Koona Goobjoog TV Muqdisho.